waxa dhacday nabiga sallallahu alayhi wasallam ayaa gurigiisii ka soo baxay goor gadiid ah. wuxuu la kulmay abubakar iyo cumar oo iyaguna goortaa gadiidka guryihii ka soo baxay ayuu la kulmay. nebigu wuxuu weydiiyey calayhi salaatu wasalaam, maxaa saacaddan guryihiinna idinka soo saaray? waxay ku yidhaahdeen, gaajaa naga soo saartay. nebigay weydiiyeen calayhi salaatu wasalaam oo waxay yidhahdeen, adiga maxaa kaa soo saaray gurigaagii wakhtigan? wuxuu yidhi, wixii idinka soo saaraa iga soo saaray, bimacnaa anigana gaaja iga soo saartay. waa tageen, saxaabi saxaabada ka mida ayay gurigiisii tageen, isagoo gurigii ka maqan. in yar dabadeed buu yimi. saxaabigii wuxuu idhi, maadaama markaa uu yimi nebiga sala allahu alayh wasalam iyo labadiisii saaxiib abubakar iyo cumar, maanta waa inaan markaa marti sooraa. middi buu qaata si uu neef ugu soo gowraco. nebigu wuxuu ku yidhi calayhi salaatu wasalaam, neefka irmaan iska ilaali oo neef irmaan ha gowricin. dabeedna markaa neef kale ayuu u gowracay, waa u soo kariyey, waa u keenay, waa cuneenoo waa dhergeen. nebigu sala allahu alayh wasalam waxau yidhi, latus'alunna yowmaidin cani annaciim. aayaddaasu akhriy, waa laydin weyddiin doonaa nicmadan. hadda u fiirso, arrinkaa waxaa ku sugan cibro weyn, wax lagu cibro qaato. waa midda koowaadee waxaa laga qaadanayaa adduunyadu inay iska liidato oo ciddii khayr ka badnayd gudaheeda ay ku gaajoon jirtay. oo nebi moxamed sala allahu alayh wasallam uu ku gaajoon jiray gudaheeda, adduunyada isagoo jooguu gaajoon jiray. abubakar iyo cumar baa gaajoon jiray. marka adduunyadu inaynay qiimo lahaynay iska liidato ayaa laga qaadanaya. low kaanat iddunya jazaa'an limuxsinin idan lam yakun fiiha macaashun lilظaalimiin. adduunyadu hadday ahaan lahayd abaalmarin qof wanaag sameeyey hadday noqon lahayd lagu abaalmarinayo, ruux daalimi wuxuu ku noolaado ma heleen. laqad jaaca fiiha alanbiyaa'u karaamatan waqad shabicat fiiha butuulu lbahaa'imi. nebiyada ayaa ku gaajooday adduunyadan gudaheeda, waxaana ku dhergay xoolaha caloolahooduna waa ku dhergeen adduunyadan gudaheeda. waxay ku tusinaysaa qiimaha adduunyadu inay liidato ayay ku tilmaamaysa. waxaa kaloo laga qaadanayaa nicmada inta yar iyo inta badan mid walba in la isweydiinaayo. nicmo kastana waxaa ka waajibaya shukri naq baa ka waajibaya. lain shakartum la'asiidannakum walain kafartum ina cadaabii la shadiid. markii hore gaajay guryahoodii uga soo baxeen, markii dambena waa la martisooray. martisoorkii la martisooray ee ay wax cuneen ayuu haddana nebigu wuxuu sheegay calayhi salaatu wasalaam nicmada in la su'aali doono. bal nicmooyinka ka badan ka warran, bal hantida ka badan ka warran, bal xoolaha ka badan ka warran, bal dheragga joogtada ka warran. yacnii haddii markaa waxaweye hal mar dheragga la dhergay ama cunitaanka wax la cunay la isweydiinaayo, bal wixii kale ka badnaana bal yadana ka warran. waxay ku tusinaysaa in nicmooyinka la isweydiinayo waxaa la eegayaa in lagu shukri naqayo in kale, waayo nicmo kastaba in laga shukri naqo ayaa waajibaysa.